akhyaarey soo dhawaada aniga xasan mudan ali dhaha maktabada baraaruga waxaan ka ahay agaasimo guud macallin jaamacadeedna waa ahay marka jaamacadaha waxaan ka dhigaa maadada loo African Studies ama daraasadda Africa had Somali Studies waaye laakiin as a general African Studies ama African Politics waxay dhahayaan waan dhigaa iyo diblomaasiyadda ama xiriirka caalamiga marka mawduucan wuu iga weyn yahay wuu iga ballaaran yahay because wuxuu ku saabsan yahay Soomaalida oo dhan oo la daraaseenayo dhinac walba laga fiirinayo hab nololeedkeeda taariikheed ama historical background Soomaalida meesha ka timid isirkeeda ama ha noqoto in la fiirinayo laga hadlayo linguistically maana luqad ahaan Soomaalida meesha ay galayso geographically dhul ahaan Soomaalida meesha ay taalo isay ku timid meesha ay degan tahay dhaqaale ahaan siyaasad ahaan intaas la fiirina marka la rabo Somali Studies marka la daraasayna marka qof hadda anigoo kale oo background-igayga yahay African Studies and International Relations wax yaran ka fahmi karaa laakiin at least Somali Studies waxa oo si dhab ah u fahmi kara qof macnaha background-giisu yahay anthropology-gana gali kara taariikhyahanna ah ama haddii kale si kala daan u dhaho saddex meelba cilmi baaris ka keeni kara midalan inta ugu badan Soomaalida wax laga qoray af Ingiriisi ku qoran yihiin marka qof af Ingiriisiga aad u fahansan oo yani xilligii gumeystaha uu joogay data badan oo naga ururiyay ama colonial record waxay dhahayaan qof intuu ka daba tago madaxafyada ay leeyihiin meelaha xogta ay ku kaysan yihiin intuu tago library-da maktabadaha soo aqriya tarjumo luqadan si fiican u fahansan qof afka Talyaaniga ku hadli kara because Talyaani intuu joogay xog badan oo ka hayo ka ururiyay af Talyaaniga si fiican u yaqaan Talyaaniga taga madaxafyada Talyaaniga booqda waxa meesha ku qoran fahmi kara even Talyaani kaliya even Carabta laftigooda dad badan oo Carab oo muslimiina saa la socotaan oo magacyada oo aad garanaysiin oo sahmiyaal ahaayeen laftigooda way darseen Soomaalidan wax badan ay ka qoreen marka ayaka laftigooda qof af Carabiga aad u yaqaan aad u fahansan oo dhanka Carabta intuu tago xog badan ka soo heli kara Carabta kaliya even xitaa Portugiiska Germaniga even Ingiriiska iyo sheeg taariikhin marka fiiriso xog ururinta gumeysiga Ingiriiska Talyaaniga waxa uga soo horeeyay Germaniga iyo Portugiiska marka qof Portugiiskana yaqaan Germaniga yaqaan aad loo ma sheego German literature ama waxay Germanka naga qoreen laakiin dad sahmiyaal ah oo asalkooda German ah oo xog naga haya jira marka ay kan in la raadiyo oo heli kara marka hadda qof anoo kala oo af Ingiriisiga qaracsanaya af Carabina warkiisa Talyaani iyo Portugiis iyo Spanish iyo Carabina iska daa marka qof ka iman kara luqad ahaan meelahaas ka iman kara Somali Studies ka si sax wax idin ku sheegi kara laakiin anaga waxaan sameeynaa marka hore mawduuciga afeefan ka dhigtay inay fahmaysan in kalma aqaana a very short introduction waxaan wax ka wada waadiinta taabanaa leebis gudaha ma galaan marka meelaha mawduucida aan rabo inaan si oo macnaha oo quickly inaan u dulmaro waxay tahay waa kuwan midalan Somali Studies maxay tahay aan ka bilaawno basic inaan iswareysano taariikhdeeda Soomaalida darsideeda ama waxa laga qoray Soomaalida taariikh ahaan intii dib ugu laabanaysa intii aadaysa dood badan ka taag wal isku haysta qolo walba waxay rabtaa in ayada ay siiso midalan marka fiiriso dadkii Soomaali wax ka qoray oo ajnabi Soomaaliba isku jira iyo muslimiin iyo gaalada waxaan kala fiirinaynaa inaan barano dadka oo liira Somali scholars ama Soomaalida wax ka qora Soomaalina ha hadaan ajnabi ha hadaan labadaba dadka ugu caansan ee magac leh oo adinka laftigeena la rabo inaad si raadisaan macnaha inaad si baartaan journalada midalan adinka hadda intiina badan arday u badana intiina badan background-iga meeshan ka imaanayno jaamacadaha iyo goobaha waxbarashada ka imaanayna iyo goobaha cilmi baarista marka mustaqbalka waxaan u baahanaa inaan wax qorno kadibna si aan doodaha ka dhax socda darsidda Soomaalida inaan wax ku biirano marka marar qaar waxaan u baahantaa inaan fahanto journalada aad u daneeya Soomaalida aad u daneeya doodahooda iyo qoraalada sameeya ayakan waa isla arki doonaa waa fiirinaynaa journalada ugu fiican lacala daarta inaa wax qortaan cilmi baaris sameysaan aad ku daawici karteen cilmi baaristeena
waxaan kaloo fiirin doonaa wax la dhaho foundations for Somali studies, macnaha waa basic arguments ama doodaha asaasiga ah ee Soomaalida laga qabo. waa arki doonaa qolo walba dhinacay ka fiirinaysa. yani hadda masalan ani hadda okiyalkan wataa, waxaa laga yaabaa marka adinka idin fiirinaya in color iyo midabo kale, because maadaama color guduud uu yahay in wax kale ii muuqanayaan. yani Isha Yusuf Xasan asaga okiyal kaloo wataa, waxaa laga yaabaa inuu si kale u arkayo. marka wax la yiraahdo paradigm ama lenseska ama theorieska aragtiyada lagu fiirinayo Soomaalida meesha ay ka timid iyo taariikhiyan way kala duwan. marka qolo walba paradigm gaar ay wadataa. marka ayadana waa isla fiirinaynaa mid walbaba aasaskeeda iyo waxay u taagantahay in doodaha markaa jira. adiga laftigeena doodaha socdana wax ku darsataan at least meelaha la geli karo. aniga laftiga intaan akhrinayay mawduucan, qoraalada aan akhrinayay waxa iga soo baxay some research yani gap ama research questions u baahan in aniga laftiga aan sii baaro marka rabo inaan PhD siisaan. macnaha marar qaar muhiim marka arkaysid meela oo qof macnaha scholar oo ku dhahayo dhinacan aad wax looguma qorin, waxa loo baahan yahay dhalinyarada ama generationka imaanaya ee odayaashan hadda Somali studies aad u darsa bedeli doono jiilkaas imaanaya waa inay sii baaraan. waa research gap, waa research question adii lagu qashayo. marka adaal raba inaad raasato kadibna aad sii baarato. waxaa kaloo kamid ah oo waxa la dhaho the partition of knowledge in Somali studies. masalan يعني aqoontii nagala aruuriyay ama xogtii nagala qaada meelo kala duwan ay ka imaanaysaa. taas waa aan markii aan ku bilaabay qofka rabo inuu mawduucan ka hadlo waa inuu qof background-giisa ama luqad ahaan waa inuu Talyaaniga fahmi karaa, Talyaaniga ku hadli karaa, Ingiriis. marka waxa waaye qoliyaha Soomaalida wax ka qortay ama anaka wax naga qortay meelo kala duwan ay ka imaanayaan. qaar waxa waaye gumeysiga Ingiriiska la socdeen, qaar Talyaaniga la socdeen, qaar Carabi ahaayeen, qaarna waa dadkii Soomaalida ahaa ama aqoontii gudaha ama local knowledge waxay dhahayaan yaqaanin waayo oo gabayada iyo culimada suufiyada iyo dadkii wax sameeyay daraasada sameeyay. marka aydan waa arki doonaa little bit that's why marka fiiris because marka fahantaysay u kala daadsantahay ama u kala qaybsantahay daraasadaha laga sameeyo Soomaalida, mar qaar waxa dareemaysaa in loo baahan yahay qof ka sameeyo book dhan ka qora oo dhammaan isku soo kooba ii sheeg wixii Soomaalida laga qoray oo magaalada Rome tagi kara, London aadi kara, Portuguese-ka booqan kara, Carabta booqan kara, akhrin kara, kadibna unified Somali wax la yiraahdo ii sheeg studies sameyn kara, isku keeni kara loo baahan yahay. macnaha say fragmented u tahay u kala daadsantahay. kadibna waxaan sameynaynaa doodo macnaha dhawaanahan socday oo la dhaho cadaan studies oo hadda gabar safiiceedii ay dhahayaan dib ugu laabanaysa. macnaha dood weli taagan waaye, laakiin markaa fiiriso doodan waa dood waxay la xiriirtaa dood waqti dheer soo taagnayd. masalan qarnigii 18aad ama qarnigii 19aad dhamaadkeeda dood ka dhex socotay dadka Hindida ah culimadooda Ingiriiska ku nool, doodo ay sameynayeen. iyo kadibna ninkii la yiraahdo Edward Said Orientalism buugiisi ah dib ugu laabanaysa, iyo nin la yiraahdo Mahmoud Mamdani oo Somali studies aad ugu yaqaan. waxaasay la xiriirtaa macnaha Safiya meeshaasay ka shidaal qaadanaysay oo ay la xiriir. marka doodahaasay ayadana ahayd. marka ayadana darbid waa isla fiirin doonaa, kadibna waxaan u gali doonaa su'aalihii aan u gali. marka daas waa mawduucyada aan cover garanto. marka mid walba aan gudaha u galo tartiib anoo aad soo koobay. taas overview good aan bixinay. marka Somali studies-ka waxaa la dhihi karaa qoraaladii laga sameeyay qoraaladii anaka nagala qoray, kuwa anaka iska qornay, kuwii dad ajnabi ay naga qoreen si kala u leh cilmi baaristii nagala sameeyay. masalan cilmi baaris la sameeyay waxay noqon karaan kuwa daabacan oo la daabacay sida hadda I'm Lewis oo kale Pastoral Democracy waa population waa la daabacay. kuwa waxaa jira oo aan la daabicin laakiin haddii madaxafyada gumeysiga macnaha maamulkii gumeysiga qoraale iyo macluumaad u ururiyay laakiin qarsana jirta oo wasaaradaha arrimaha dibadda qaybta la yiraahdo archive departments hadii la tago ama colonial office waxay dhigi jireen Ingiriiska hadii la tago laga heli karo laakiin xog qarsan ay tahay. xogta kaliya ma aha qaab qoraal kaliya kuma imaan karto. mararka qaar waxay noqon karaan qolay waxaa jira ay dhahan archaeologists-yaal ah oo rabaan inay baaraan isirka ama taariikhda ummadda ayagoo u isticmaalayaan waxyaabahan materialka ama artifacts waxyaabaha ay dhahayaan sameynayaan. masalan
waagi hore oo kale yaa xasuusta xilliga soo gaar baashan ubada ay dhahan awooyaashin waxay isticmaali jireen Soomaa baashan ubba ay dhahan lagu simi jiray laakiin hadda ubada wax kala bedelo Soomaa hadda tubaa bedeshay marka waa ayadoo 200 oo sano kadib ayadoo dad ubadaas ay baarayaan kadibna raba inay ogaadaan sida aan u nooleynaysan u isqaadan jirnay wixii agabyada aan isticmaali jirnay ayadoo cilmibaaris laga sameeyo marka qolyaas archaeologists-yaasha ah laftigooda xog macluumaad ay qaadeen oo meel ay dhigeen jirta laakiin aan wali la record gareyn oo aan la qorin marka meelaha ay ka kala imaanayaan cilmibaaris la sameynayo ama dadka cilmibaaris sameynaya background-igooda meesha ay ka imaanayaan masalan dadka hadda aad ugu caansan oo aad looga hadlo waa anthropology qoliyaha aad Soomaalida aad u daneeyay anthropologist-yaashan wax kala ma daneynayaan kaliya waxay fiirinayaan ama guud ahaanba si guudba darsidda Soomaalida laba concept ay ku dul wareeganaysa wax la dhaho identity oo ku saabsan Soomaalidan maxay yihiin intee ka yimaadeen israel intee galaan iyo wax la xiriira qabaa'ilka iyo la xiriira isreynta ama isirnimada identity mid kalena waa history taariikhda Soomaalida intee galaan intee aadaan Arab miya muslimiin wax la yiraahdo Afrikaan miya taas debate ka gala Soomaalida dadkan meesha ay ka yimaadeen marka labadaas meel ku dul wareeganaysa laakiin dadka badanaa aad u danay identity-ga misalan anthropologist-yaasha kale oo aan Lewis inay dhahan u weyn yahay identity-gaas ama topic-yada la xiriiro aad u danayna waxa kamid ah qolyahan la yiraahdo sociologist-yaasha ama darsa habnololeedka bulshada daraaseeya dadka bartay darsidda Soomaalida wax badan oo ku biireen aqoon badan oo ku biireen hadda dadka oo Soomaalida ah oo cilmigan aad u bartay oo doodo ku biireen nin la yiraahdo Cabdi Kuuso waa taqaanin Cabdi Kuuso waa nin bartay cilmiga sociology-ga laakiin doodaha jiro qayb ka yahay oo markay timaado Soomaalidu ma dad isku dhaqan ah miya ma one nation miya mas waa nationalities ma dad hal ummad isku ah miya mas waa ummado kala duwan oo kala af ah oo kala dhaqan ah oo diin iyo dhul bas ay midees wax kala aan mideen nationalists مثلا debate kaasoo kala taagan Somali Stars ka dhex taagan iyo Cabdi Kuuso iyo nin yaraad Maxamed Xaaji Mukhtaar iyo sheeg dad badan ay ka hogaaminayaan wuxuu u lead iyo reer Eno family Eno Umar Eno iyo Maxamed Eno hogaaminayaan qolyaha la yiraahdo linguistic ama luqadyahanada aad ay Soomaalida wax badan oo ku biireen aqoon badan oo ku biireen waxa kamid ah dadka hadda mesela linguist-yaasha kale waxa kamid ah nin la yiraahdo Muuse Galaal Muuse Xaaji Galaal sana asaga waa nin linguistiga iyo nin yiraahdo Andrew Wisk labadooda way isla shaqeeyaan boog waxa jiro oo gadaalan ka arki doona hadda marka inta arkaysaan marka la leeyahay Andrew Wisk ana Xaaji Muuse Galaal boog ay qoreen waxa la yiraahdaa Somali poetic combat oo kaga hadlayaan mesela gabayada guba saddexda gabay oo saddexda qolo isweedaarsanayeen ninkii ahaa Qamaan Bulxan oo jigjiga jooga iyo Ali Goronyo Ali Dhoox oo lascaanood deegaanada jooga iyo ninkii la oranjay Salaan Carabi saddexdaas oday gabayada isweedaarsanay waxay ku sameynayaan way analyze gareynayaan boog ay qoreen lixda meeyada meelaas amal ay qoreen Andrew Wisk iyo Muuse Galaal marka linguist-yaasha dadka meesha ka imaanayaan wax badan ku biiriyeen historiography waxa la yiraahdaa sawir taariikheedka mesela dadkan taariikhdooda in la sawiro oo sheeg la cilmiyeeyo iyo qolaan archaeology-ga oo godadka qota oo kadibna waxyaabahan agabyada intay soo saaraan raba inay ogaadaan dadkan isirkooda iyo taariikhdooda meesha ay ka soo bilaabatay marka halkaas ay ka kala imaanayaan waa Somali Stars-ka iyo fiildiyadan ka hadlayo waxaan u maleynayaa waa war badanahay waqtigan inaan idin la qaybsado rabo laakiin waxaan ka cabsanayaa inaan waqtigan idin ka qaato marka taariikhda Somali Stars-ka qolo walba meel ay la aadaysaa mesela Lewis iyo odayaashan xilligii gumaysiga soo baxay dad waxay ku doodayaan in laga horeeyay oo ka horeeyaan qolyo Arab ahaa oo muslimiin ahaa oo dhulkan Soomaalida soo gaaray gaar ahaan xeebaha soo gaaray qoraal ka sameeyay oo dadka la yiraahdo sahmiyaasha oo qarnigii 16aad 17aad 14aad dhulkan imaanay sahminay qoraal ka sameynay laakiin caadiyan mesela dadka hadda Somali Stars aad u darsa dooda hadda taagan waxa waaye mesela si cilmiyan academic ama scientifically mesela wax u qortay
oo مثلا qaab ilaa ma ogtahay marka laga hadlayo academic research standard la raacaa jiro oo hadda qof kastoo wax qoray lama dhigi karo cilmi baaris waaye waa inay jiraan standard wax lagu fiirinayo halbeeg lagu fiirin waa inay jirtaa marka daas waa Am Lewis oo u yahay qoraalada uu sameeyay oo culimadan kale ka horeysay wax saameynaysa oo kaga saameyn badan because maxay wixiis waxaan wax standard ku socda oo cilmiye sane ahayd oo sameynay marka dadkaas carabta jiray dib ugu laabanayso laakiin waxa u timaadaa teamkan uu imaaw oo hadda dhow oo gumeystayaasha xitaa inta u galin Soomaalida gudeeda dad waxa jira waa u jeedin Uways Albarawi iyo Sheikh Aydurus macna dad waxay ahaayeen Soomaali ah laakiin xajka tagay wadamada carabta aaday diinta soo bartay imaaday kadib waxay bilaabeen inay question gareeyaan identity-ga Soomaalida isir ahaan meesha ay ka timid marka waxay bilaabeen inay sameeyaan inay abuuraan waagi hore ma ogtaa reer hebel iyo akasa la kala taagnaa kadib waxay rabeen inay sameeyaan common identity oo ah muslimnimo umma identity in la dhaho reer hebel ata laakiin waxa ka tirsan tahay ummad la dhaho muslim ah oo aan xuduud lahayn qaab saas camal identity saas camal abuureen oo muslimnimada ay aad u sameeyaan culimadan marka wax badan ay contribute gareen laakiin dadka aad loo buunbuunay waa Am Lewis oo ninkan anthropologist ah wax kale ma aan wixiis waxaan systematic research academic research wax systematic oo cilmi ah oo diyaarsan ahayn qaabku wax u qoray marka Am Lewis bugiisi aha pastoral democracy taariikhiyan meeshaas ay ka bilaabanaysaa qoraaladii ama daraasadii ay sameeyeen gumeystaha ay ka aruuriyeen iyo nin yiraahdo Andrew Whiskey iyo Ishaq Muuse Xaaji Galaal oo idin sheegay waan gudaha u gali doona mid walba doodooda waxa u timaadaa dadka scholarska ah I hope dadka qaar inaan ka tagay suuragal qaar inaan ka tagay laakiin waa intaan tusaale u soo qaaday aad u badan yihiin dadka Soomaalida wax ka qoray oo labada shayba haday idin sheegay idlahay Somali studies ku dul wareeganaysa oo taariikhda iyo identity-ga ama heebta iyo taariikhda ah aad macnaha u darsi wax badan ka qoray midalan Andrew Whiskey oo ujeedin علي جمعالي أحمد بروفيسور علي جمعالي أحمد دتك براروك لايبرري كحر ويفهم كران وبروفيسور كمكتبته كحرن عبد كوسو قاعدين شيء سوسيولوجيست عبد إسماعيل سمتر دتك وحكم داي دوانها مثلا تدوات ميد سيديت ميد وحكي دمية آد معناها ضد معناها معقول أو آد حوجن سومالي ستادس كسمية أسقي ولاركيس عبد إسماعيل سمتر أحمد إسماعيل سمتر لبضبة ضد معقولة سمية جامع موسى جامع أصلا وإثنو ماثماتيكس مارتن أوروينس هو لينغويست بدن اللينغويستياش عن أوجو بدن لكن محمد حاج مختار وتاريخيا ونكب بالله مثلا ضد سومالي دو إنسان ضد هالميل كود إمادي أو اسكو رقن أو يشيء اسكو رقن اسكو إسرائيل أيسن أهين ضد كلا تاريخ أو كلا دوان سنة وحي استعمالها كلا قومية دان هذا إيش رحوينت أو كلا إيه مركل الله بديجا مثلا ضد كان كله جيليدا حبنولد كوسكو مدنا سكالو ده ضد حاجة بيرلي أو لايف ستايل كذا من الله شود أيتها بيرلي حبنولد كذا ضدنا حبص صار ك نولد كل حجران حبك وحص صار كذا حكوا ترسين وجيلي وحول دقته وراعته ضدنا راعته واي مثلا وجيل وحكوا جيران ضدنا وبيرلي لايف ستايل كله كل دمين سماها marka asaga dhankaas mar wuxuu ka fiirnaa geographical mar wuxuu ka fiirnaa isirnimada iyo ranimada mar wuxuu ka fiirnaa lifestyle-ka lagu la jiro nolosha marka wuxuu leeyahay waa kala duwanahay aad u kala duwanaa dad manihin oo iska same midda kale xitaa dhaqanka marka fiirisid dadka qaareeraha qaar marka fiirisid hadda abgaalkoo kale way shirbaan laakiin ogaadeenka ma shirbaan even xitaa marka fiirisid dhanka dhaqanka iyo shiribka iyo marka fiirisid baraamburka iyo heesaha xitaa Soomaalida waxa fiirta qabiil walba dhulka uu degan yahay in uu leeyahay wax la yiraahdo dhaqan hoose ama subculture u gaar ah inuu leeyahay marka hadda ii sheeg doodaas Maxamed Xaaji Mukhtaar dadku wuxuu ka mid yahay wax la yiraahdo heterogeneity Soomaali inay dad heterogeneous ah kala duwan oo kala dhaqan inay kala isra asaga iyo Cabdi Kuuso iyo dad badan la qaba doodaas argumentaas Sheikh Saciid Samatar waa taqaan Facebook ay maalin dhaxas mar aan wax ku soo qorqoray asaga aan ka hadlaya jira qoraal yar aan ka sameeyay ninkan asagana linguist ama sociology waaye taariikhiyan waa la dhihi karaa African history go bartay ama wax la yiraahdo taariikhda Afrika oo bartay marka
buug waxaa jira oo caana waa arki doonaa buuggiisa laakiin marka la fiiriyo ninkan doodaha markay timaado dadku culimada marka la doodayo oo laba dhinac loo kala baxayo wax la yidhahdo qolyo aaminsan in soomaalidu noloshooda ay ku dul wareeganaysa hab nololeedka qabaliga ama nolosha miyiga in soomaalidu aysan weli ka dhammaan haddii magaalo la imaado xitaa weli in la yahay qabiil in la yahay reebaadiye la yahay iyo dad la yirahda isheeg la dhaho wax la transformationist ama wax la destructive paradigm la abuuray oo reer samatar ay ku jiraan ninka marka dhanka I'm Lewis iyo teamkiisa aad loogu tiriya bookis marka akhrisan taasoo sii xoojina macnaha sababtan waxay tahay asaa geelle marka saada mire waa taqaan saada waxa waaye waa archaeologist waana dadka archaeologistaashu hadda soo baxa book waxaa jira mar dhow ay soo saartay oo ay qartay ay kaga hadlayso North Africa dadkan North Africa dhadega Afrikaanka ay kaga hadlayso marka book cajiib ah Xuseen Tanzania waa taqaan Soomaaliya ninka asaasay waxa la International Somali Studies Association ninka sameeyay asana nin cajiib ah wax badan ku biiriyay Somali Studies-ka safiici diida hadda idin sheegay iyo Maxamed Xajin Greece asana labadaba safiici Maxamed Xajin Greece waxay lead gareynayaan young Somali scholars hadda soo baxay waxay u yihiin tusaale u yihiin raalaha marka safiya iyo Maxamed Xajin Greece saasan u soo qaatay macna inay tusaale noo yihiin maadaama dad dhalinyaro oo hadda Somali Studies-ka macna ka sameynaya yihiin journalada u imaada marka journalada journal waxaa jira yaraa Bildaan almost 20 sano hadda jira Bildaan waxa editor-ka Axmed Ismaaciil Samatar asagana wuxuu ka mid yahay journalada caalamiga ah oo jaamacadda yara Macalester College oo hadda Axmed Ismaaciil Samatar oo maamulo ka yahay ayaa hoostaga ayakaana gacanta ku haya asana editor-ka ah marka qofka u baahan inuu wax ku qoro Bildaankaas uu ku qori karaa darasada Soomaalida marka qoraalada Soomaalida laga sameeyo lagu qoraa journalka daabacan mid waxa jira Horn of Africa and Independent Journal isna uu jira Journal of Somali Studies waa dadka Journal of Somali Studies dadka board memberka waxa kamid Professor Ali Jimcaale Axmed kamid Professor Ali Jimcaale kamid laakiin dadka asaasay Ali Jimcaale iyo reer Eno Maxamed Eno iyo Umar Eno iyo dadkaas iyo Cabdi Kuuso iyo Maxamed Eno iyo Cabdi Kuuso iyo Jimcaale iyo waxay u yihiin journalkan ayaka base ah odayaasha geed fadhiga ayaka waa marka ayadan waxa lagu daawacay waliba hataa journaladan I think 2014 la sameeyay marka maadaama uu cusub yahay Bildaanka wuxuu sameeyay sanadkiiba hal edition oo sameeyaa laakiin kan waxa la sanadkiiba 3 edition inuu sameeyo suuragal marka hadda kan oo kale Journal of Somali Studies-ka qofkii wax qoran research sameeyana si ku kale ugu daawici kara maxay yeelay sanadkiiba 3 waxay sameeyaan edition Somali Studies peer review academic journal for the Somalis and Somali Society Journal kan asana waa journalka loogu talagalay dadka Britishka iyo Soomaalida ayadana waxa arkay dhowr article oo Maxamed Xajin Greece iyo isha Eno ay ku qoreen arkay marka laakiin waxa ka saameyn badan marka la fiiriyo hadda journalada labada journal oo hadda saameynta leh waa Bildaan iyo Journal of Somali Studies labadaba dad Soomaali oo culimada gacanta ku haya journal kale waxa jira dad ajnabi ah ee board director yihiin oo yaani dhalinyarada hadda soo bixiso wax qoraysa laga yaabo in ay ciriiriyaan ma aysan ay fursad inaysan siin ay soo baxaan meesha marka aan rabo inaan aad uga hadalno aad uga sheekeysano waa meesha wax la dhaho doodaha jira markay timaado Soomaalida taariikhdeeda iyo isirkeeda iyo markay timaado dhacdooyinka Soomaalida gudaheeda ka dhacay loo fasiraa hadda example oo kale dawladnimadii burburtay state collapse waxa la nagu dhacay see loo fasiraa marka maxaa sabab markay timaado qaab nooca loo macnayn karaa haddana 30 sano macnaha ummad dawladnimadeeda ay burbursan tahay in ka badan 30 sano haddana waa wax la yaab leh qaab nooca loo akhrin karaa marka qoliyo ii sheeg qoliyo la yiraahdo traditionalist thesis ama Lewisian paradigm oo ninna I'm Lewis iyo teamkiisa ay kamid yihiin ayagu yani waxay qabaan mushkilada Soomaalida waa mid dib ugu laabanaysa dhaqanka qabiilka dhaqanka reer miyiga iyo qabiilka ayaa mushkilada ama problemka Soomaalida heysata waa taas waaye waa dad reer miyi ah waagi 1000 sano toman jeer waa daawatiin Soomaalida waxa macnaha toman jeer amal isku ahaayeen xilligii miyiga markii la joogo reeraha way isdagaali jireen reerihii miyiga isku soo dagaalaya magaalo iskugu imaado dawladda dhisteen dawladdeena sidii miyiga isku dagaaleen ay magaaladana dagaalka ula yimaadeen
markaasay baasuuko iyo waxay qaateen iyo wixii la isku dili jiray hoobiyaal shalay hadday waramo wateen oo wax la yiraahdo isha falaar isku dili jireen hadda hoobiyaal iyo baasuuko isku rideen waana kala x iyo y iyo reere isku dagaalayaan marka asaga wuxuu qabaa dood macnaha oo somehow marka fiirisa cajiib ah laakiin waxyaabaha oo marka la dhaliilayo waa arki doonaa qolyaha dhaliilayo cajiib waxa waaye nolosha Soomaalida 2000 oo sano ka hor qaabka uu noolaayeen oo primitive life oo qabaa'ilka ah ayay ilaa hadda ku nool macnaha 2000 oo sano ka hor nolol ay ku noolaayeen ayaa weli daba socota no change wax isbedel ma jira مثلا gumaysiga intuu soo imaanin ka hor pre-colonial wax la yiraahdo Somali political life ka qaabka ahaayeen ayaa weli nool waxyaabaha kale oo isbedeli kara hab nololeedka laakiin arinta identity-ga ah qabiilka isma bedelin wax change kuma dhicin marka shalay reere ahaayeen maanta inuu yihiin birina way noqon doonaan nothing else wax kale ma jiraan oo laga hadli karo haddii xabad isku ridaan reernimo isku dagaalayaan haddii ay wax kala dhacayaan reernimo isku dhacayaan haddii ay dawladnimo dhisanayaan reernimo u dhisanayaan macnaha nothing else wax kale ma jiri karo oo loo isticmaali karo oo kiyaal kale oo inta la xirto lagu fiirin karo mushkiladda Soomaaliya ma jiro the only haddii rabto inaad ka hadasho dhibaatada Soomaaliya amlis iyo teamkiisa qaba qolyahan waxay leeyihiin waa inaad fiiriso wax la yiraahdo isheeg qabiilka reernimada fiiri nin la Richard Burton oo waxa jira asana sahmiye aha asaga inta kaga horeeyay mesela asaab bilaabay oo daraaseynay Soomaalidii ku nooleed Seelac iyo Berbera dhinaca soo fiiray kadibna harar uga gudbay ninkan Richard Burton wax kale ma fiirna kaliya hab nololeedka Soomaalida qaabka isku doortaan qaabka isku aroosaan si ciyaartu u ciyaaraan sidee ay iskaga dambeeyaan dagaalada qaabka u galaan marka qaabkaas uu sameeyay observation ka sameeyay marka qabiilka iyo sida Soomaalidu ugu weynta uu ka hadlay aynu wuxuu soo qabtay uu cilmiyay wuxuu ka dhigay nolosha Soomaalida marka asagu wuxuu leeyahay hadalka meeshan ku qoran dhan waa idin soo koobo ayadu Soomaaliya mesela the fundamental principle ku leeyahay mujidin organizing principle of their way of life is segmentary clanism Soomaalidu hab nololeedkeeda waxa udub dhaxad u ah marka ay rabto inay wax sameeyso ama heykal wax kasto ay dhisanayso waxa base u ah ama qofka Soomaaliga marka uu fikirayo waxa base u ah qabiil marka ama magaalaha joogo ama wax la yiraahdo tuulaha joogo waa same waa isla aqliyadi waxba isma dhamaan marka qoliyo waxa jira arintan diiday laakiin inta aan gelin kor waxa rabaa inaan idin tuso buugaagta ay qoreen mesela hadda ninka Richard Burton buugiis waa kana waa raadin kartiin waa heli kartiin hadda nin la yiraahdo ii sheeg Boodhar Warsama wuxuu u tarjumay Soomaali u tarjumay saankii Richard Burton ugu magac daray waa heli kartiin waa raadin kartiin bal aqriya macnaha the way oo u fasirayo macnaha Soomaali wax la yiraahdo socio political life ka ama nolosha siyaasadeed qofka Soomaaliga isoo u fikirayo qaabka uu soo wiraa bal arka ee marka fiirisa pastoral democracy I'm Lewis uu isku dhow yahay marka waxa fahmaysaa labadaba inay ka imaanayaan wax la yiraahdo ii sheeg one paradigm ama hal ookiyaal inay ku fiiriyaan nolosha Soomaalida hal meel inay ka fiiriyaan kadibna inay ku sameeyeen mesela nin geeleeyo oo lascaano jooga aad daraaseynaysa kadibna waxa leedahay Soomaalidu dhansan u eegin laakiin qofka Soomaaliga ee bardaala ku nool ama qofka Soomaaliga xudur jooga ama qofka deeg wax la yiraahdo jamaame beeraha ku falana ninkaas geeleega maxaa ka galasay isku macnaha shaqo ma isku live ma marka generalization ka waxba lagu qabsaday kamid ah in wixii dhan ka dhigan generalization kale marka book kalena waa kan Amnews bookisa pastoral democracy almost continue shantii ilaa iyo continue 7 wuxuu sameeyay daraasad 2 sano ah cilmi baaris ah marka 2 sano wuxuu sameeyay Soomaalida waqooyi degan gaar ahaan waxaan u maleynaa dhinacan inay ahayd Sooli Sanaag iyo meelahan area-daas wuxuu ka sameeyay dadka joogo la noolaa la joogo xoolo la daaqay markay isguursanay geed hoostiisa loo fadhiisana uu daawanayo wuxuu ka sameeyay wax la dhaho ethnographic research bahalkan si u qabsanayo all those things waxa soo dhan dhaqan ka tarjumaan marka ethnographic research kaas ku sameeyay book aad u fiican way akhriya wax badan ku arki doontaan laakiin nolosha miyiga iyo psychology qofka Soomaaliga soo u fakarayo waxaas ayuu ka sheekanaa buugga labaad oo doodaas uu ku difaacayo dooda Soomaalidu inay weligeed qabiil soo eed haddana ay ahaanayso nolosha Soomaalida inay weligeed qabiil ku bees gareysaneed haddana ku bees gareysanta nolosha Soomaalida ee siyaasiga inay ku dhisantaa qabiil oo aan isbedelayn oo wax kale macnaha nothing else only qabiil wax kale oo raacsan ma jiro dooda saas dhaysa marka buuggan kala asna uu ku sii faahfaahiyay
wuxuu ku sameeyey kusii faahfaahay marka doodaas waxaa aada usii xoojiyey oo la qaba nin la yihahdo David Letton iyo nin la yihahdo Said Samater Sheikh Said Samater waxay qoran bug la dhaho Somalia Surge in Nation in Surge of State macnaha Soomaalidu waa dad oo qaran ah laakiin dowladda ka maqan xitaa Soomaalidu inay qaran tahay xitaa mar qaar dood waa idin sheegay Maxamed Xaaji Mukhtaar iyo Cabdi Kuuso iyo Dime hogaaminaya reer Eno iyo waxay qabaanbo dadku inay kala duwan yihiin qaranimaha noo dambeys waa different first dad kala duwan aan kadib aan ka wada hadalnay sidii loo sameyn lahaa nation sida loo abuuro macnaha waa dood aad u xoog badan marka ninkan asaga maadaama dadka geeleeda inta badan waxay aaminsan yihiin Soomaalidu ay qaran yihiin koos maxaa yeelay weyneysada qofka geeleeda oo kiyaalka u xiran ayuu ku fiirinaa the whole Soomaalida kale oo dhan bis taas uu ku fiirinaa marka taas waxay keenaysaa inuu sameeyo marka teamkana buuggaas ay qoreen Nation in Search of State hal raadiyo waa la heli karaa qolay markuu waxaa jiray 86 wixii ka dambeeyay dad waxaa jira oo culimo ahaayeen oo Soomaali ah oo dhalinyaro ah oo Mareykanka tagay wax bartay oo jaamacadda Mareykanka ku bartay oo ay ugu horeeyaan School of Thought-kan waxaa lead gareynaya kii hore I'm Lewis lead gareynaya moogtahay oo dhaqanka la xiriiray qabiilka kan waxaa lead gareynaya nin la yiraahdo Cabdi Ismaaciil Samater iyo walaalkiisu Axmed ah kadibna teamka kala gadaalay ka imaanay marka dooddu waxay ka dhalanaysaa dhacdooyin dhacay moogtahay dhacdooyinka dhaca waxaa kamid ahaa dagaalkii 77 dhacay waxaa kamid ahaa dawladdii iyo waxa isdagaalayeen gobolada qaar qabaa'ilada qaar iyo askarta ciidanka isku dhacay qabaa'ilada qaar waxa lagu sameeyay ceelasha laga duugay marka waxyaaba dhacay macna state-ka laftiisa waxa ku dhex jiray waa marka ay dawladnimada sii burbureysay fragmented ay sameeyeen sii burbureysay marka waxaas waxa la rabaa in la sharxo oo laga hadlo dheey waxaan ay u dhacayaan macnaha ay wax yara dawladda siyaad bar madaxweyne siyaad bar oo qaabkan ugu fakaray qolii ka soo horjeedo oo jamhadii kacay ay u urursadeen waliba jamhad walbana ay hal reer u ahayd in la sharxal ramugtahay marka I'm Lewis waa iska taqaan markaas oo kiyaalka qabiilku watay wuxuu leeyahay dadkan motorka dhaqaaji waa reernimadaas leebis Allah reernimadaas leebis yani ii sheeg hal aado wax kale ma sharxi karaan marka nin la yiraahdo Cabdi Ismaaciil Samater dad waxa jiray ay u cuntum weysay oo Cabdi Ismaaciil Samater uu kamid yahay Cabdi Ismaaciil Samater dood wuxuu la imaaday la dhaho transformationist thesis ama deconstructive paradigm la dhihi karo mesela doodan wuxuu ku keenay wuxuu qoray buuggiisii PhD oo ka sameynayay 86 inay heedan jeclahay wuxuu qoray buug qoray uu ka sameeyay jaamacadda thesis-ka uu ku qoray buuggaas oo doodiisu ugu badan ku soo bandhigay buuggaada tus intii ugu jira waa kana horta buug The State and Rural Transformation in Northern Somalia buuggan markuu qorayo oo thesis-ka jaamacadda markuu sameeyay buuggan markuu qorayo doodii uu ku soo bandhigay saanay ahayd marka asagu wuxuu taagan yahay nolosha Soomaalida isbedel ku dhacay مثلا qofka Soomaaliga ee geeleedaha ee 200 oo sano ka hor noolaa gumeysiga ka hor noolaa iyo qofka Soomaaliga ee maanta nool berbera ku nool isku mid maaha qofka macnaha waxa ku dhacay jinjigaas ugu badan wuxuu ka iimaanayay laba meel buu ka iimaanayay mesela asaga doodda uu la iimaanay waxa waay wax la dhaho commercialization of the livestock macnaha Soomaalidu ma ogtahay waxay lahayd mode of production ee lahayd habab wax soo saar ee lahayd hababka wax soo saarka qofka geeleeda ee Soomaaliga wuxuu ahaa xoolaha marka waxa soo baxay magaalada xilliga gumeys markuu yimid isbedelada dhac waxa kamid ah gumeysigu wuxuu keenay nidaam iyo dawladnimo keenay nidaamkaas iyo dawladnimada Soomaalidu wuxuu ku riday isbedel ku sameeyay number 2 mid taas oo mid ku mid labaadna waxa waaye wuxuu abuuray gumeysigu wuxuu magaalooyinka ka sameeyay xeebaha maadaama uu sida Ingiriiska oo kale ujeedada ugu weyn oo qoy u kumeysan ay ahayd wax la yiraahdo in askarta ka deganeed cadan si uu xoolo u helo wuxuu abuuray koox ganacsatada dhaxda ka sameeyay oo la yiraahdo merchant class waxay sameeyeen qolii oo geeleeda ah oo wax soo saarayay ay xoolaha ka soo qaataan barbaray geeyaan dulaalo taqasuma barbaray geeyaan Ingiriiska maraakiibta Ingiriiska cadana loo dhufay lacag ka helaan marka koox ganacsatada oo gudaha ku jirta soo baxday kooxdaas ganacsatada marka waxay noqdeen kooxdii ahaa economic class waagi hore qofka geeleeda ay meesha jooga asaga wixii haystay saaxuuliis sameeysanay asaga wax soo saarkiisa la asaga wuxuu ahaa qofka oo macnaha wax la yiraahdo sheeg economic power ka saxa hadda laakiin qofka geeleeda economic power ka laga qaatay ganacsato yar oo magaalooyin ka soo baxay xeebaha degan qaatay oo dulaale ah taajiray haystay
again haddana dowladnimadani waxay samaysan koox groupa soo bax la yirahdo elite oo macnaha gumeysiga la shaqeysta askar u ah wax la yirahdo isha waxay sameeyaan xafiisyada uga shaqeeyaan krani maalana kraniyaal noqdeen turjubaani noqdeen those classes badanaa soo baxay qofka marka wuxuu sameeyay dadka geeleeda way soo baxeen geeloodu way ka soo tageen magaalada ay imaadeen dowladnimada la falgaleen ganacsatay noqdeen qofka Soomaaliga markuu geelo joogo sida ay wax weyn ugu ahayd qabiilka nolosha uu ku noolaa iyo markuu magaalada yimid oo gumeysi la falgalay isbedel ku dhacay marka ninkan waxa lagu haystaa waxa la leeyahay sheekada ah naga daa qofka Soomaaliga shalay wuxuu ahaa wax la yiraahdo nolosha uu shalay ku noolaa ayuu maantana ku noolyahay qabiilkan asal u ah ma aha waxyaabo badan marka waxa jira ii sheeg oo qofka draft gareynaya waxa kamid ah economic needs ka kamid ah midalan baahi dhaqaale jirto qofka dhaqaajina not kaliya ma aha qabiil inuu qofku wax u sameeyana ma marka faqriga dhacay musuqmaasuqa dowladnimada corruption ka sameynaysa qoliye ganacsatada oo dhaqaale sameeyna qof marka wuxuu sameeyna identity aan qabiil ahayn ee qofka noloshiisa dhaqaajinaya waagoor haddii qabiileed hadda waxyaabo kala dhaqaajinaya interest uu hadda yeelana ganacsi uu sameystay waa inuu yeeshaa economic waa inuu guri dhista waa inuu wax sameystaa waa inuu wax la yiraahdo madaxtinimo waa inuu helo oo dowladda raadiya all those things qofka draft gareynaya keenays inuu dagaal kiciyo inuu dad dilo inuu dad dhaco inuu wax dhaco laakiin qof marka kor marka laga fiir waxa loo maleynaa qofka inuu qabiil dartiis u sameeyanayo laakiin wax kale waxa jira qarsan marka Cabdi Ismaaciil Samatar iyo teamkii iyo argumentigaas la imaadeen waxayna leeyihiin dowladnimadii burburtay qabiil ma burburine waxyaabo kala keenay because kooxihii groupiski sameysmay is dagaalay qolihii baadiyaha oo rural wax la producers aha oo magaalada soo galay oo meesha ka baxay la baabi'iyay basic production Soomaalida because geelid waa laga qaaday qolihii ganacsatada ah oo magaalada jooga oo gumeysiga uu sameeyay iyo qolihii gumeysiga intuu wax barasho u diray dowladnimada uga tagay oo gumeysigu wax soo baray waxa la yiraahdaa elite waxa la dhaho political elite ama political groups ka jiray shab is dhaxay ayaka is dagaalay marka maadaama ayaka is dagaaleen qabiil ma mushkilada qabiil ma mushkilada su'aal bad waa group waa elite failure elite ka fashilmay daasa marka waxay timid in state oo burburo oo la isku dagaalo taasa keento laakiin ma aha leeyahay I'm Lewis ha aadin qabiilka problemka meel kale ka jirta qabiilka victim waa leeyahay ma fahamtay mid kalena ninkan Cabdi Ismaaciil Samatar dooda cajiib ku leeyahay waxa kamid wuxuu leeyahay war laba shay ha kala saarin waxa jir waxa la dhahaa qabiil iyo qabyaalad clan and clanism wuxuu leeyahay clanka waxa la yiraahdaa marka la yiraahdo clanshipka ama waxa la yiraahdaa qabiilka Soomaalidu baadiyaha waa sidiisi waa qoysas waa reere no dhib ma laha laakiin marka magaalada la imaaday dadkii oo magaalada soo galay ayaa dowladnimada dhex galay qabiilkii ay dowladnimadii ku dhex wax la yiraahdo isheeg qabiilkii wax ku dhex isticmaaleen ay ku magac qabiil isticmaalayeen waxay isticmaalayeen siyaasadda soo dhex galay macnaha when you put clan wax la yiraahdo politics into clanship halkaas waxay ka dhalanaysaa wax la yiraahdo clanism macnaha hadii qabiilka inta soo qabato siyaasadda soo dhex galiso oo siyaasadda soo dhex galisa qabyaaladee noqonay laakiin mushkiladda qabiilka ma ahane waxa waaye marka aad wixii isku karis ma leeyahay isheeg isku dhex karis qabiilkii iyo siyaasadda isku dhex karis ooga dhigtay kadib marka waxa imaanaa mushkilada ay imaanaysa Cabdi Ismaaciil Samatar asaga wuxuu qabaa doodaha soo qabaa dadka qaba in Soomaalidu si cusub loo daracseeyo oo Cabdi Ismaaciil Samatar kaliya ma Cali Jimcaali teamkiisa qaba Cali Jimcaali buugaan uu edit gareeyay the invention of Somalia and I hope was the best book oo ugu fiican oo contemporary Somali stories ka laga qoray ana book hadda aan dhihi kara gadaal ka soo bax ma jiro laakiin 90kii kala wareega la galay moogtaa Soomaalidu waxa dhacay shifting ka dhacay book ugu fiicnaa ee la qoray oo nolol Soomaali sawiraya waliba dad culimo Soomaaliyeed ay qoreen ayuu bookgan ahaa bookgan gala waxa qornay leeyahay Lika Sanele asagu wuxuu I'm Lewis ka koonfurta la dhihi karaa yani si dadban because I'm Lewis ka koonfuro daraasay laakiin Lika Sanele asagu muxuu daraasay maya I'm Lewis wuxuu daraasay waqooyi laakiin Lika Sanele wuxuu daraasay koonfur waqooyi ma aadin ka study wuxuu ka dhigtay koonfur maadaama dadka koonfurka ay beeraleeyihiin oo xoolo dhaqatada ay ku yartaan uu fiirinaa marka sida ay identity sida qabaa'ilka ay ku sameysmeen iyo sida jamaacaadka ay ku abuurmeen iyo dawladihii ajuuraan iyo galadiga dhismay qaabka lagu dhisay iyo culimada yani wax la yiraahdo duruq ama suufiya qaabka ay wala falgaleen ama ay qayban uga ciyaareen in la shape gareeyo identity ama qabiilka Soomaalida marka book fiican waaye dadka rabeen aad u daraaseeyaan gaar ahaan koonfurtan dadka rabeen inay wax ka qoraan
boogan la yiraahdo ii sheeg the shaping of Somali society wuu anfaca muhiim ah meeshuu ka kici karaa. Catherine Bestman asana wuxuu sameeyay maqaal waay kan article waay. marka article kan Catherine Bestmanka doodii I'm Lewis oo karbashay uu leeyahay yani adiga qabiila ku indha tiray mushkilada qabiil maaha problem kala jira. Mesela Soomaalidu waxyaabaha bedelay dhacdooyinka dhacay ee Soomaalidu bedel waxa kamid ah Soomaalidu gumeystaa u imaaday gumeysiga wax buu ka bedelay. Soomaalidu waxay gashay dagaalkii qawaay xilligii gobonimoodoonki wax bay afkaarihii xilligaas gobonimoodoonku wax badan ay ka bedelay. dagaalkii qawaay Cold War dhacay Soomaalidu wuxuu ku sameeyay wuu bedelay isbedel weyn ku sameeyay dhacdooyin dhacay mugta ku sameeyay dawladnimada burburta laftigeeda impact badan ku yeelatay Soomaalida iyo diaspora dibadda laada. markaas wuxuu taagan war isbedel badan dhacay qabiilkan u jeedid marar qaar macna ma laha waa laga awood badan yahay waxaas ka awood badan aan diiradda saar. Mesela dhaqaale burburkii dhacay 1980 the Cold War ama dagaalkii qawaay u dhaxeeyay hardankood wax badan anaga soo gaaray faqri ama development Soomaalida ay tahay oo elite-ka laftigooda oo mid walba self interested ama dantiisa fiirinay laakiin aan fiirinayn ay sheegdan. marka maqaalkan Catherine Bestman doodii oo ahayd reformationist thesis-ka ayuu ku biiriyay ama ay sheegay deconstructive paradigm-ka doodaas oo kaga darsaday. sagaashan wixii ka dambeeyay gabadhan la yiraahdo Lidwin Coptunis dood oo macnaha waxay keentay oo gadaal dama doodo kale ay ka dhalanaan because ayadu waxay rabtay inay sameyso two paradigm ay idin sheegay Soomaaliya Lewisian paradigm iyo deconstructive paradigm ayadana waxay rabtay inay sameyso wax la yiraahdo historical paradigm historicism waxa loo approach wixii in la taariikh every event in loo sameeyo taariikh in loo sameeyo marka ayadu waxay sameysay 1991 ilaa 1992 waxyaabay dhacay dhacdooyinka dhacay wuxuu ku sameynaysay ay labadii sano 1991 markii dawladda burburtay ilaa 1992 wuxuu ku sameysay study. marka waxay sababta ugu weyn waxay leedahay war culimada oo dhan waxay isku mashquuleen state collapse war dawladda burburtay laakiin waxay leedahay dawladda way burburtay laakiin dagaalkii lagu la jiray dawladda marka hore waxa state wuxuu ahaa jamhad. markuu state-ka dawladnimo marka meesha ka baxday dagaalku waxa waaye dadka rayidka is dagaalay marka waxay noqdeen qabaa'ilada is dagaal state-ku meesha ka baxay dagaalkii waxa ku dhacay leedahay shifting oo dhacay shal hadii dawladda xabad lagu ridaayay maanta dadkii dawladda xabad ku ridaayay way soo jeesteen dadkii oo dawladnimada ama qabaa'ilkii dawladda la socday ayaa lagu jeestay kadibna waa la xasuuqay saas ayada leedahay macnaha cleansing lagu sameeyay macnaha dood cajiib ah. laakiin ceebo badan ay leedahay meelo badan laga dhaleelay laakiin ayadu waxay rabtay inay iftiimid macnaha meesha ay rabtay inay ka dhax sameysato hadda I'm Lewis oo kale wuxuu abuuray moogta wado abuuray oo xir badan oo sameeyay marka ayadana waxay rabtay inay wada cusub abuurato si loo raaco. marka buugga wuxuu ka mid yahay buugaagta gadaal dambe ka soo baxay oo Somali Studies-ka doodo badan ku biiray dadka aad u dhaleelay dadka ii sheeg aad u dhaleelay buuggan waxa ka mid ah Maxamed Xaji Ingiriis oo kale waa aragtay laakiin Ingiriis kaliya ma aha dad badan reesama tarxitaa buuggan way dhaleelan sababta weyn waxa leeyahay wax la yiraahdo one moment macnaha fiiri waa 2 sano waa 1991 1992 waa labadii sano ugu xumeedahay way labadaas sano u dooratay marka this historical moment hal mar ay dhaceen laakiin maadaama ay dhaceen wax badan dhacay waxaas badan oo dhacay laftigaada maadaama la rabo qofka scholarka waa inuu problemka xalliya marka ayadu waxa lagu haystaa in mushkiladda ay sii ka dhigayso complicate wax badan dhacay xasuuqa dhada marka qof kasto akhrinayo wuxuu ku ridaysaa naxdin ku abuuraysaa iyo uqdad iyo dagaal ku abuuraysaa marka ayadu waxyaabaas lagu eedeynayay iyo at some time wax la yiraahdo ii sheeg epistemological problem mesela dadka xogta ay ka keenayso dadka wareysad waxa kamid ah Cabdulla Gaas Razaari hore Cabdulla Gaas 1991 magaalada ma joogin 1992 magaalada ma joogin macnaha ma keen wax ayadu lagu eedeynaa kamid ah dad badan oo wareysatay haddana ayada lafteeda xitaa ma ahayn markii daraasadda ay sameynayso wixii dhacayeen goobjoog uma ahayn macnaha ay mar walba waxay sameynaysay second hand dad ay wixii ka qaadaysay xogta ay ka qaadaysay marka dadkaas laftigooda waxay noqon karaan bias xog qaldanaysiin kara marka meelo badan lagu qabsaday laakiin at least in dagaalkii qabiileedkii dhacay in macno loo sameeyo oo la daraaseeyo oo waliba moogta marka dagaal la galo dadna waa dadkii wax dilaaya dadna waa dadkii la dilaaya ama perpetuatory victim marka hadda victimka la sheekaysato muxuu ku sheegaa ani maanta hadii aan Maryan aan mobile ku dhufto
oo adiga cimbaaraha marin hours marin maxay ii sheegay xasan mudan waxa leeyahay tuuga mobile ugu dhuftay dhibaato ii geysaan macnaha wax wanaaga ana xaggayga kaama sheegays ana hadda ay timaad waxa leeyahay marin ayada iga qaldan maxay la computerkay iga jabis saasaan ugu dhuftay qolo walba markay sameeyaan narrative discourse sheekada ayada u gaarkay qolo walba ku sheegaysa marka halkaas waxa ka iimaanaya ii sheeg waxba lagu dhaliilay kamid yahay wareys waxa uu timaada qaybta ah partitionka qaybta partitionka uu imaa mesela hadaa idin sheegay qaybtan aad ugu ma dheeraanay Soomaalidu waxa laga qoray dad Soomaali ah oo Soomaalida oo dad Soomaali ah oo Soomaalidu wax ka qoraa jira oo Soomaali wax ka dhaxay dad waxa jira Soomaali ah oo dadka Soomaalida taariikhdooda iyo isirkooda iyo saakooda iyo fakarkooda gabay ku cabiraa jira waa ayadana waa literature macna Soomaali literature Soomaali saris kamita gabay ku cabiraa jira Soomaalidu xiriirka la lahayd wadamada shisheeye mesela dhaqaalaha ay si adduunku cabir had mesela hadraawi oo kala gabadhiis qaran ka fiirayso markuu dirnaa mar qaar wuxuu ka hadlaa dagaalka Vietnam uu ka hadlaa imagine waa gabiyaa waa researcher ma laakiin the way depiction ugu sameeyay ama uu cabiraayo dagaalka socday iyo sida Soomaalida ay ula socotay adduunka marka meelaha cilmiga laga doono marka waa aqoon dhan oo af Soomaali ku qoran mushkiladda jirtaan waa inay sheego daraasadda Soomaalida ay u kala qaybsantaa qoli waxa jira Ahmed Lewis iyo teamkiisa af Ingiriisi wax ku qoran dhinacay taagan qoli Talyaani wax ku qoran marka cilada jirto waxa waay Ahmed Lewis af Soomaali kuma hadla ma yaqaan gabayadan ma fahmi kara af Talyaanina kuma hadla ma fahmi kara Jirole ninka Jirole dhigi jiran oo Somali Stars qaybta Talyaaniga wax ka qoray ama hogaaminaya ninkaas qaabku wax u qoray ma fahmi karo Jirole af Soomaali ma yaqaan kii kale anaha af Ingiriisina ma fahmi karo marka waxa timid dhowr Soomaali waxa ka qoray dad oo kala luuqad ah oo mid walba mid kale aan fahmi karin Soomaa hadda anaka Ahmed Lewis aan akhrina laakiin cid soo akhris ma jira buugga Jirole oo qoray oo waxa trilogy saddexdii volume oo ka sameeyay Soomaali no because luuqadda ma naqaan dad waxa jira German oo Soomaalidu wax ka qoray ma naqaan dad Arab wax ka qoray ma naqaan marka linguistic problemka ama caqabada luuqadeed waxa kugu taa wax cilmi dhana ka maqan marka ninkan wuxuu leeyahay si macnaha mushkiladda loo xaliyo oo loo fahmo qof wuxuu u baahan yahay in dhammaan luuqadaas kala duwan cilmi lagu qoro qof waa inuu access u yeelan karaa markaas oo si deeply ah oo Soomaali u keeni kara marka wuxuu ka sheekeynaa ninka hadda ninka the partition of knowledge in Somalia waa article waaye lika sanele laftigiisa qoray laakiin markuu sheekan wuxuu leeyahay anoo reer galbeed isaga waa nin I hope inuu Canadian yahay marka wuxuu leeyahay anigoo western ah meesha aan ka imaana waxa uu yiri aqoonti waxaan akhrinayo reer galbeedka dhinaceeda ka imaana laakiin wuxuu yiri wax badan ay iga maqan Talyaani xaggooda wax badan ay iga maqan u leeyahay man aqaan Soomaalida qaadiriinta suufiyada waxay ku qoran jireen af Carabi ku qoran jireen laakiin wuxuu yiri ana ma aqaan marka wuxuu leeyahay for the coming Somali scholar generation ka dhalinyarada ah hadii rabaa inay waxan xaliyaan oo xitaa dawladnimada Soomaaliya qarnimada hadii rabaa in la xaliyo marka hore waa in Soomaalidan hadday kala qaybsantaa wax kala xitaa intellectual heritage-keeda way kala qaybsantaa leeyahay soo gumeysiga u kala qaybiyay ayuu intellectual heritage-ka Soomaalidan u kala qaybsantaa qolol meel ugu xiranta cadaan Stars aad u soo koobay cadaan Stars gabar loo dhaw Safiya Ciidida bilowday Safiya waa gabar Canada joogto Soomaali ah laakiin PhD-ga hadda mar dhow ay dhameysay sanadkan dhameysay jaamacadda Harvard waxayna baratay waxa la African history marka Safiya ayadoo wax barbaaraysay journal la dhaho the Somaliland miya African Studies miya the Somaliland of African Studies journal saas camal ah oo macad ku yaala Hargeysa oo nabadda iyo arrimahaas lagu daraasay xiriir la leh ay aragtay oo markaas la sameeyay gudaha fiirisay qolihii board editorada fiirisay hal qof oo Soomaali ka weys dhamaan wada cadaan waay dadku waxay rabaan inay Somaliland wax ka qoraan ay rabaan ardayda Somaliland ee jaamacadda Hargeysa joogtay inay fursad siiyaan haddana editorada iyo ma board editors oo dhan dad waxa ku jira cadaan ku jira marka way question garas waxay dhahay how come why macnaha ii sheeg what kind of paradigm adiga aniga ugu matali kartaa marka macnaha weynaysan noocee aanay ugu fiirin kartaa therefore aniga anaa kaaga aqoon badan anaa is fiirin kara haddii marka rabtay inaad Soomaalidu daraasiso ugu yaraan waxay ahayd haddii meesha cunsurinimo ka jirin ama yasma ama aysan ka jirin waa in marka la sameeyo ama gumeys maskaxda haddii meesha ka jirin waxay ahayd in dhowr qof oo Soomaali ah maadaama Soomaalidu ay ayaga iskaga aqoon badan yihiin
in lagu dareexid marka waxay bilaawday dooday bilaawday marka ninkii la yiraahdo nin waxaa ka jira board editorada kamida la yiraahdo Mark Hornka si xun ugu jawaabay wuxuu yiri adinka doodiina iska wada laakiin at the end of time saa u doodaysan qabyaaladiina iyo qabiilkiina dib ugu laabanaysa macnaha ma leeyahay aamini kara waa dhab idin kama scholarship again haddana waxyaaba lagu dhil waxa kamid ah wuxuu dhahay Soomaalidu dulqaad uma laha inay wax la yiraahdo sheeg muddo bil ah inay cilmi baaris u fadhiyaan muddo dhowr sano inay darsaan hal mowduuc dulqaadkaas ma laha 1 week inuu qofku meel fadhiyo computer garaaco wax akhri Soomaali dulqaad ma laha wuu fiirino iskaga tagaa marka waxa you guys macnaha wax dhab idin kama aha hatta agtiina qiimo kama laha marka wuxuu Safiya wuxuu jawaabta laga bixiyo waxay dhalisay marka dood weyn oo la leeyahay reimagining Somali status laakiin waa idin sheegay dad kaga horeeyay oo la leeyahay naag waxa jilay Spivak waxay qartay maqaal la dhaho kan the subaltern waxa la yiraahdaa subaltern speak dadka looma ooyaanka ah ma hadli karaan Soomaaliyeed dad waxa jir looma ooyaanka ma hadli karaan wax ma sheegi karaan hadda example yar aan siinaa aniga marka qaar aad u naxaa marka la fiiriyo anaka dhaxdeena isku sameeyaan midalan wadada marka marto 100 qof marka wadada mareys 80 ama 70 kamid waxa laga yaabaa inay u badan yihiin wax la yiraahdo group ana qabiil ma dhahay group laakiin isku dabeecad ah macna isku class same isku nolol ah inuu u badan yahay dad macna xamaalata ah muruq maal ah ama gaariga aan raaci karin ama bajaaj aan raaci karin oo lugeenay inuu u badan yahay you know those things dadkaas marka dadkaas yaa wax ka qorama taqaana dad anaka nalamid ama dad cadaan ah dadkaas u hadla laakiin dadkaas nolosha ay ku nool yihiin ayaka wax ma qori karaan ma sheegi karaan ma hadli karaan dad kale u hadlaya oo noloshooda iyo problemka haystay economic inequality lagu hayo all those things u hadlaya marka ayadu waxay leedahay looma ooyaanka dadka hindida ah ee looma ooyaanka ah ma hadli karaan oo wax ma sheegi karaan because dadka hindida dad cadaan ah wax ka qoran marka ayadana Safiya waxay leedahay isla same argument Soomaalidu ayaka waxa iska qoraan adinka waa hadleen anaka isku hadleen marka dooda saaseed wali way taagan tahay waa wax la decolonizing Somali status in lagu sameeyo gumaysi maskaxeedka Somali status in laga sameeyo oo dadka Soomaalida ay wax qoraan maqaaladana raba marka inaan idin kula taliyo inaad aad wax u aqri xoog saartaan midda koowaad waa meelay aan inta badan aan akhrinayo xogta aan ka keenayo maqaalada aan isleeyahay qofka haduu akhriyo Somali status at least uu fahmi karaa wax meesha ka socdo midda koowaad Somali status towards alternative epistemology by Abdi Ismail Samato wuxuu doodaha soo ka hadlaa doodii Aamin Lewis uu la galay Aamin Lewis waxa uu sheegay iyo asaga dooda uu wato ayuu uga hadlaa maqaalkan waxa kale oo jira maqaalka oo leeyahay waxa destruction of state and society in Somalia asna Abdi Ismail Samato qore aqriya wax kale kama hadlo wuxuu ka hadlaa dawladnimadii burburtay maxaa keenay waan idin sheegayo kooxaha elite-ka dadka ay dhahan madaxweynta dadka leeyahay oo siyaasiyiinta ah ayaa wuxuu leeyahay Soomaalidu burburiyo leeyahay laakiin qabiil ma yaan qabiilku wax laga sheegin it's all about those elite as selfish ah oo macnaha daneystayaal ah oo aan ka fakareen wax la yiraahdo waxa wadankan u fiican ama wanaagsan kursi la iibsanayo musuqmaasuq qof musuqmaasuq sameeyna qof kursi gadana qof lacag wax sameeyna qof hanti umada dhacay do you think that inuu wadanka jecel yahay dadkaas wadanka burburiyo la qabiil ma yaan la aadan qabiil gabadhan leeyahay Lidwin Copchinis maqaalkan waa cajiib because Aamin Lewis aad u dhaleeleysa oo wuxuu aad u criticize gareynaysa waxay leedahay fiiri marka maqaalka marka fiirisan Aamin Lewis and Somali clanship waxay leedahay marka la fiiriyo koonfurta marka la fiiriyo identity qabiilka la mid ah oo sameysana jir way qabiilka u soo dhax qabatay mesela example waxa jira wax la yiraahdo identity la jameecad culimada suufiyadu waxay sameeyeen qabiil waa laga tagay jameecad wax la dhaho adiga jameecad ka tirsantahay adiga xirtee tahay hadda anigoo kale waxaan ka tirsanaa moolac la dhaho moolac baraarug tii badan oo saaxiibaday oo hadda qaar kamid inta fadhiyaan moolac kamida waa identity baraarug moolac baraarug waa identity waxa ku jira dad kala qabiil ah laakiin magacaas guudaana mideeya wajir jameecada jira mesela magaalooyinka qaar hadda mesela magaalooyinka xeebta ah ama dadka magaalooyinka jiray dadka jooga waxay ahayd dad waxay ku aftirsanayeen deegaan reer Baraawe reer Xamarweyne reer Dhigley reer Hebel marka wax la yiraahdo territorial identity ama residential identity gas waa identity jiray waay marka gabadhan waxay leedahay dadkii Soomaalidu wax ka qoray ama gumaysiga wuxuu sameeyay
identity-ga qabiilkuu soo qabtay kaasuu xoojiyey uu bunbuuniyey kuwa kale way baaba'ayaan marka meeshay ka baxayaan because cidna ma bunbuuninaysa cidna ma daryeelaysa cidna ii sheeg daraasad kama samay cidna wax weyn kama dhigays maanta haddii la karo Soomaalida mushkiladeeda oo dhan waxaa waaye because of reer baraawanimada ama reer wardhiile reer hodanimada hodan waa degmo magaceeda waa qabiil ma aha dad badan reer hodan noqon kara soo maaha marka wax weyn ay sameeyeen macna weyn ay sameeyeen marka akhriya maqaalkaas waa cajiib waaye the partition of knowledge in Somalia baa lika sanela asagana akhriya because wuxuu idin ka dhisaa sida ay daraasada Soomaalida ay u kala qaybsan tahay ida shaqada noo taal oo ah inaan isku kabno oo aan hal cilmi baaris Soomaaliyeed aan sameeyno. Thank you very much. Waa ku dheeraada raalaxad.